بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صباح wanaagsan saaka waxaan ka hadlayaa wax shalay ummadoo dhan ka fajiciyay oo hadaan Soomaaliyeed nahay aan la yaabnay ninka safiirka ee Djibouti u fadhiya safir ku sheega oo gudoomiyihii ruuxiga ahaa ee Soomaaliland Faisal Al-Waraab waxa ka sheegay oo yiri Hargeysa ku dilayna waanu ku falayna hadii laga ka qaban waayo taasana naga yaabisay waxaan leenahay Djibouti annagu Faisal waxa uu sheegay waan la soconaa waa runtii Djibouti waa cadawgeega koobaad waxa weeyaan hiil walaal bay ula baxeen Muqdisho wax la laxay noo qabtaan ma jirto baasaboor iyo macwiis way nagu xukumi jireen labadiina waanu tuuray hadii ninkan maanta madaxweynaha ay uu inta qadarinayo seedinimo u qadarinayo isaga jirtaa iyo baasaboorkiisa isaga jirtaa laakiin waxa leeyahay dawladda Soomaaliland hadaa naf leeyihiin oo inuu dhiignu ku jiro oo inuu wax kala qaadanaysan ninka safiirkii 24 saacadood wadanka ku gaari hadii kale waxba laga qabanaya baada ogaada waxba laga qabanaya ninkaas hanjabaadu shalay Faisal hanjabay Faisal Hargeysa jooga oo ku dhashay jid ku dhashay oo degan hanjabaadu hanjabay waxa laga qabanaya waxa laga qaban doono waxba laga qaban doono ninka 24 saacadood ta kale waxa la yaab leh TV-gii qaranka laga soo daayay war meelka dawladdu ma la jirin marka ma la jirin oo aan la jirin xididnimada tiina ina geelo ku sameeyay baan ogeyn oo soo boobay ee la soo tuuray ayaan ogeynaan iska liqnay Djibouti waxa ku 200 daqiiqo ku filan 200 daqiiqo ayaa ku filan waxba iska cilmayaan Faransiiskuna iskaga tagi waa magaalada yar qura waxaan leenahay Djibouti waxayna ka doonmeynaa naga baxa ordo hiil walaal doonta Soomaali weyn iyo kuwaas ayaa wax siisan doonta jawaas iyo macwiis lagu xukumi meesaan in daayiban leen madaxweynaha taan siinaya hadaa wax ka qaban weydid oo ninka wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanaya nin baasaboorka ilaashanaya iyo nin xididnimadu jiidanayso labadaas ma lagu qaadanayo waana dhab hadaa 24 hours ka bax